Somaliland maanta way silcaysaa waxay maraysaa marxalad xasaasiya Somaliland way silcaysaa ama aynu si fiican u aasno Somaliland ama aynu saami sax wax ku qaybsano oo cadaalada waxay tiraahdaan marka laga hadlayo xukuumadeenan cusub haloo kaadiyo marka la soo hadal qaado waxa la yiraahdaa haloo kaadiyo Muuse imikuun buu sanad wali ma gaarayay 6 bilood buu joogay taasi waxa leenahay waa been iyo khiyaali cad dadka lagu marin habaabinayo waxaana taa beeniyay hogaamiyaha da'da ee Ethiopia oo soo baxay Abiy Ahmed oo 3 bilood wax ka yar xurgufii caalamka iyo United Nations ku kari waayeen hadday tahay Masar hadday tahay Eritrea hadday tahay Djibouti hadday tahay waddanka oo dhan waxa la wixii culaad taalay 3 bilood wax ka yar ku soo afjaray isagoo u taliya 8 qowmiyadood madaxweyne ah inagoo hal qowmiyada oo tiradeenu 3 milyan lagu sheegay wax la jira in uu Muuse bixi la yiraahdo haloo kaadiyo isagoo 7 bilood maanta kursigii maraya waxay la tahay uun jug meeshaada joog waaya beedaan reer xamar marka dhanaba aan loo socon weeyaan waxaan leenahay xukuumadda maanta jirta Muuse dariiqa uu marayo hadii aan laga qabanin Somaliland waxay geeysiin doontaa meel aan laga soo waqsan waxaana inoo horseedi doontaa burbur iyo kala carar waxa galaafan doona xukuumadda Muuse 3 masiibo oo waaweyn kow colaad cilaf weyn dagaalka tukarraq iyo xasarada banka wajaale xukuumaddu ka wado 3 boogood bay xukuumadda Muuse aanay sinaba ula kici kareenin intaba ay iyadu bilowday intaba iyada ka cid bilowday madaxweyne Muuse waxa leenahay dadku cadaalad buu baahan yahay dhaqaale buu baahan yahay dagaal iyo colaad ma baahna waxaad moodaa aqligii ee Muuse inuu wali dagaalun hamuun u qabo madaxweyne waxa lagu dhibay dal musuq maasuqa iyo sixir bararku oo salka dhigtay taas la doonay wax laga qabto dagaal kale hor la ayadin gelisay shacbigii Soomaaliland way isnaceen waxaad moodaa maanta inaynu ka ayaan daranahay 60kii dawladdii 60kii Soomaaliland sidii wax loo qaybsaday waxay ahayd 50% dadka kale iyo 50% beesha dhaxaa maanta saamiga Soomaaliland hadaad u fiirsato 16% dadka kale iyo 4% beesha dhaxaa weeyaan taasi waxay araxda ka jabinaysaa goonistaagii Soomaaliland been baynu dadka u sheegaynaa cidna aqoonsi iska day cidna dhageysan mayso intaynu sudaanahay reer Somaliland dhexdeeda ayaa looga baahan yahay horta inay iyagu ixtiraafaan inaga leeyno baahan inaynu soo sax wax u qaybsano hadii madaxweynuhu ku mashquulo beeshiisu kali hata wuxuu noqonayaa madaxweyne beelad kuma qanacsanin sida maanta Somaliland u taalo gudidii ugu dambeysay ee Muuse bixi waxa la yiri mid maxaa u dambeeyay kala siisido gudidii ugu dambeysay xuquuqul insaanka ee Muuse bixi magacaabay xubin kaliya ku jirta dadka galbeedka xubintii xukuumadii hore tiina uu ka saaray wuxuu ka dhigay beel sooca taas waxay ku tusay aqliga Muuse sidoo uu uga kori wali qabyaalada inuu isku qoonsaneen inuu yahay madaxweyne Somaliland oo dhan bariga galbeed matalaya hadii ay saa ku sii socotana de waa la tashanayo cid walba wixii Ilaahay baday bay yeeli sani si la sii daawan karayo maaha waxa sadaqnimo anigu aanu dusha u saaraya aqoonyahanka nimanka sheegtay reer awdal hadii aqoon leeyahay waxa la yiri hadii aqoon leeyihiin markaasi aqoon ay inuu lagu tuhmayo waxay ahaan lahayd inay aqoontooda dadkooga deegaankooga runtii ay ugu hadlaan oo u damqadaan nibaniku ka shahaado weynaa wuxuu ku qanacsan yahay wax yar hoose consultant midna Hargeysa ka wadayihiin aqoonyahankii ugu waaweynaa nimankii PhD-da sheeganayay maalan maanta ahaynba markay ma doonto la xisaabinayo kuwaasna oo la xisaabtami doonaa waxa kale oo jecelahay inaan ka hadlo saamiga baarlamaanka ee xukuumadda oo ay xukuumaddu dibadda ka riixayso in sidii hore lagu galo baarlamaanka aqbali mayno yeeli mayno wax xaraan doorasho dambe oo sidaa lagu galayay waana nu qaadacaynaa haddii xukuumaddu nagu dirqido waxaan u sheegaynaa maanta waxaan leeyahay taariikhdu iyada isqorto gudoomiyaha baarlamaanka baashi waa nin reer bariya gudoomiyaha xigeenkuna waa nin reer galbeeda waxaanu leenahay haddii maanta ay duqnimo soo qaadaan dadkiina taariikhda idin xusi doonto haddii fichaqaatayaal noqotaan dadkiina u qaadaan duqnimo oo sidii hore laynagu dirqiyo oo ku gashaan doorashada annagu horta yeeli mayno dadka barigana waxaanu sheegaynaa inaanay aqbalin doorasho xaraan oo sidii hore xal lagu galo waxa la xisaabtamayay yeeli mayno 60 nin oo isku reer inay baarlamaanka hor fadhiyaan annaguna aanu ka noqono minority xaraan bay tahay si xaq ah in wax loo qaybsado iyo in ay laalnaato waxa nooga dhaxeeyay ninka inuu ku fikirayo inuu taasi halkan ka hadloona waxa leenahay iska hadlow inay higre adeer dhici mayso yeelina mayno waxaanu leenahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha ku xigeenka taariikh ka taga oo dadkiina wax u cuntamo soo qaada taasina waa taa waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa adeer dadka cadaalad ba dadka lagu dhaqaa waxaad moodaa
xukuumadda maanta jirta adduunyadu markay sawirka saa u aragto inay ka qurux badan tahay tafarmaajo ka sawir qurux badan tahay waayo madaxweynaha farmaajo waa nin daarooda ama mareexaana waxa ku xiga oo isaguna u ra'iisul wasaare in hawiya waxa ra'iisul wasaare ku xigeen waa nin isaaqa waxa maxkamadda sare haystaan in saasoo kala waa xukuumad saasoo kale lagu qaybiyay wixii ay oran jireen 4.5 ama 5 ba xukuumadda Soomaaliland maanta dad eegto foolxumadeeda iyo xiix baa ku qabanaya madaxweynaha gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare taliyaha ciidanka booliiska taliyaha ciidanka militariga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda waxaan u maleynayaa inay una tahay shimbiraha heesa Soomaaliland lagu sheekay waxa xaraan adeer maxaa noo diiday annagu haddaan nahay reer galbeed reer wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda maxaa naga xaaraantinimay miyaanad moodinayn maxaa looga qaadi lahaa taliyaasha booliiska iyo militariga gudoomiyaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare maxaa loo siin lahaa adeer waxaan iman soconayso cadaalad darrada Soomaaliland inta ka badan way dheeliyaysaa way dhacaysaa hadii wax